war degdega dagaal toos ah ayaa ka qarxay caawa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waliba habeenkii ciidda oo dadku ay xilliga farxadda qaadan lahaayeena ayaa rasaas laga dul riday xilli mugdi ah ayay baaruuda sidan kaga dhacaysaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay haddaba waxaan eegaynaa dagaalkan waayo cidda uu dhaxeeya sidee buu ku bilowday khasaaraha ilaa ay hadda maxaa la ogyahay xaafadaha uu ka socdo waa intee magaalada Baydhabo caawa xaalkeedu ma sahlana habeenkii koowaad ee ciidul fitriga oo ay dadku faraxsanaayeen suuqyadu camiray yihiin ayay rasaas dhacaysaa waxaana sabab u ah xasan sheekh iyo lafta gareen laakiin caawa dagaalkan cidda sida gaarka u quseeyo waayo khilaafku uu isa soo tarayay maanta un ayay ahayd markii gudoomiye Aadan Madoobe loo diiday inuu tago magaalada Baydhabo caawa waxay martigelisay iskoor imaad aad u xoogan oo u dhaxeeya maamul goboleedka muddo kororsiga ku jooga ee lafta gareen uu madaxda u yahay iyo ciidan lagu sheegay kuwa xaq u dirar oo deegaana oo Baydhabo ku dagaalamaya sidoo kale magaalada duleedka dagaal kale ayaa ka dhacay waxaana la sheegay inuu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa maayafuulka ayaa la soo gaaray sida xogta ay sheegayso haddaba khasaaraha jira muxuu yahay dagaalkan waayo cidda u dhaxeeya xogtu way is soo taraysaa waa war degdega hadda un ayuu bilowday dagaalka waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay soo dhawow seebaad u aragtaa muxuuse salka ku hayaa isleedahay dagaalkan aragtaada qaybta hoose faallada noogu reeb ciid mubaarak saaxib aad baan kuu salaamayaa sharaf iyo garaam weliba dadka gaarka ah ee saaxiibadeena ee nagu xiran ee subscribe-tana siiyey waa ay mahadsan yihiin weliba abaal gaara ayaan u haynaa waxaan ku leenahay ciid mubaarak saaxib ciidul caafiya haddii aadan nagu xirayna saaxib subscribe soo dhig geedigeena 100,000 oo saaxiibo ayuu ku dhowyahay dhowr 80,000 maraynaa ka qayb noqo saaxiibada nagu xiran waa mahadsan tahay waxaan ku bilaabayaa iska horimaad aad u xoogan ayaa caawa ka socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wuxuu u dhaxeeyaa ciidanka maamulkaas saraakiil ciidan oo dawladeed iyo kuwa kale oo deegaana taliyihii CID gobolka Bay ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa nin lagu magacaabo Madgal oo ah garabka gudoomiye Aadan Madoobe u jooga Baydhabo ayaa khilaaf aad u weyn waxa uu soo kala dhaxgaray isaga iyo lafta gareen Baydhabo caawa dagaalka ka dhacaya wuxuu u dhaxeeyaa baa la yiri oo xaafadaha qaar ay lafta gareen isoo ku dagaalamayaan in halkaasi ay ku kala adkaadaan sidoo kale maamulka ayaa ka cagajiidaya inuu arrinkan hoos u sii galo maadaama uu isku bedeli doono dagaal qabiil sidoo kale waxaa la leeyahay waxay raggan aad markaasi kaarkooda u xoqanayaan beelaha ay ka soo kala jiraan sarkaalkaasi ayaa ilaa ay hadda la xaqiijiyay in dagaalkan markaasi uu kala dhaxeeyo ciidanka koonfur galbeed sida xogtu leedahay sidoo kale iskoor imaad kale ayaa ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo kaasoo u dhaxeeya ciidanka koonfur galbeed iyo ciidanka mucaaradka taabacsan oo lagu diray kuwa dawladda federaalka kuwaas oo markii saddexaad ku dagaalamaya caawa xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa leh kulan degdega oo ay kaga hadlayaan xaaladda koonfur galbeed lagana sugayo in go'aan uu ka soo baxo laakiin inta kulankooda uu socdo rasaasta qaybo kamid ah magaalada ay ka bilaabatay oo area suuqa xoolaha ah xaafad lagu magacaabo Abshiro xitaa waxa laga soo sheegay in dagaalku uu sii gaaray guddiga doorashada ayaa dhinaca kale la sugayaa in caawa ay shaaciso koonfur galbeed oo golaha wasiiradu ay ku dhawaaqaan in maamulkaas uu doorasho galayo kana tashtay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ay xogtu leedahay rasaas culus ayaa la maqlayaa daryanka hub waaweyn oo noocyo kala duwan leh ayaa la maqlayaa rasaastan cidda ridaysa si gaar looma oga laakiin waa mucaaradka iyo dawladda oo aan hebel la dhihi karin halka taliye ee CID gobolka Bay ka tirsan ee Aadan Madoobe xigtada yihiin baa ilaa ay hadda xogtiisa naloo xaqiijiyay oo aan helnay sidoo kale khasaaraha ilaa ay hadda jira waxaa la sheegayaa inuu isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababtuna waxa weeye in xilligii afurka kadib uu markaasi dagaalka bilowday iyadoo oo magaaladuna ay zaxmad ahayd dadkana ay u diyaar garoobayaan in maalmaha ciidda munaasabadooda ay farxad ku ciidaan taliyihii CID gobolka Bay hadda dagaalka qayb ayuu ka yahay sida xogta markaasi aan ku helayno sidoo kale dagaalkan wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo oo maanta xubno golaha wasiirada ka tirsan ay tageen magaalada Baydhabo aan dhahday ee magaalada Buurhakaba
gobolka Bay wasiir Xasan Eelay ayaa ka mid ah raggii maanta Baydhabo tagay xaaladuna cirka ayay isku sii shareeraysaa markaasi sida muuqanaysa dabcan si kastaba ha ahaato daawadayaal xaalka faraha ayuu ka sii baxayaa lamana ogo markaasi sida uu ku soo idlaan doono dagaalkan ilaa ay hadda xogtu waxay sheegaysaa in hub culus la isu adeegsanayo ma cadda tirada rasmiga ah ee dhimasho amaba dhaawac oo weliba lama ogaan karo dagaalka ayaaba socdo 30 daqiiqo wax ka yar sidoo kale waxaa xusid mudan daawadayaal in markaasi rasaas habow ah dad shacaba ay guryahooda ugu tagto laba dhinac rasaasta ay isu adeegsanayaan waxaa la sheegay in dad shacaba ay guryahooda ku haleeshay oo ay ugu tagtay isla markaana la filan karo khasaaraha inuu sii bato maadaama dadkii shacabka ahaa guryahooda ay ugu tagaysto rasaasta sida ay xogta sheegayso markaasi sida aan hore inkugu sheegayba dagaalkan khasaaraha uu dhaliyay wixii ka soo kordha waa kuu soo gudbin doonaaye isla Baydhabo waxaa ka socda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa kulan degdeg ah la qaatay odayaasha dhaqanka sida aad ogeydeenba kadibna wuxuu haddana kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha ciidanka isla caawana wuxuu kulan degdeg ah haddana isugu yeeray golahiisa wasiirada waxaa ka go'ana la leeyahay ku dhawaaqista guddiga doorashada Koonfur Galbeed isla markaana qaban doono doorasho uu si og yahay markaasi in uu isagu ku soo bixi doono waxaa la leeyahay doorashadan 90% wax ka badan isaga in uu ku soo baxay ayuu hubaa wuxuuna diyaar u yahay baa la yiri in markaasi uu doorashada qabsado sida ay xogtu leedahay markaasi daawadayaal xaaladda Baydhabo faraha ay ka sii baxaysaa madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa isaguna ku adkaysanaya in maamulkaas uu sii haysto halka dawladdu ay markaasi ku adkaysanayso in iyaduna markeeda ay maxaan ku iraahdaay maamulkaas ka ceerin karto ninka la leeyahay Cabdicasiis Laftagareen dagaalka soo kale xogta aan keenay waxay leedahay ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed iyo kuwa mucaaradka ayuu si rasmi uga dhaxeeya bartamaha magaalada oo xaafadda Afardod ka mid tahay ayuu dagaalkan ka dhacaya waxaana dagaalkan uu daba socdaa khilaaf muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ka taagnaa oo ciidamo iska soo horjeeda ay halkaas isku hayaan dadka Baydhabo ayaa ciidda waxay ugu bilaabanaysaa khilaaf iyo dagaal wada socda taasina waxay xaaladda ku sii cuslaynaysaa dadka shacabka ah muuqaalo toos ah oo ka imaanaya Baydhabo ayaa muujinaya xaaladda oo xun xilli magaaladu uu iftiinkeeda baxayo xabaduna ay dhacayso leerarka iyo cadceeda iftiinta ma jiri lahayn haddii aysan nabad ahayn waxaana dadka loogu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo sidoo kale badqabka sideebaad u aragtaa dagaalkanse muxuu ku soo dhamaan doonaa ayaa isleedahay aragtada qaybta hoose faalada Nowreb muuqaalkan like saar siina share garee gudoomiye aadan madoobe madaxweyne Laftagareen ayaa iga hor istaagay ayuu sacad u yiri inaan tago magaalada Baydhabo gudoomiyaha ayaa maanta garoonka Baydhabo ee shaati gaduud laga soo celiyay qoraal dheer ayuu soo qoray dabcan isagoo oo wax laga xumaado ku tilmaamay in laga hor istaago magaalada Baydhabo ee gobolka Bay qoraalkiisu wuxuu ku yiri tallaabooyinkan oo dhan waxay muujinayaan ku xadgudubka sharciga iyo xanibaad markaasi lagu sameeyo muwaadiniinta xaq u leh inay tagaan deegaankooda ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe si kastaba dagaalkan xogihiisu way soo tarayaan telefishinka caalamiga ee RTN Somali TV ayaa ku waramaya dhawaqa rasaasta ee la maqlayo lagana maqlayo xaafadda Tawfiiq ee magaalada Baydhabo inay tahay daraawiishta iyo ciidan kala dagaal u dhaxeeyo xogaha waxay tibaaxayaan baa la yiri in dagaalkan uu markaas u dhaxeeyo mucaaradka iyo madaxweyne Laftagareen dagaalkan caawa ku soo aadayo ayaa waxa uu muujinayaa halka uu taagan khilaafka xaaladuna faraha ay ka sii baxaysa ayaa dabcan leeyahay xog walba oo la xiriirta dagaalkan iyo wararka Baydhabo ka imaanayaba adiga ayaa noqon doona qofka ugu horeeya ee daawada saaxiib subscribe soo dhig channelka muuqaalka like saar siina share garee oo maasan tahay muuqaalkan ila daawo bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudaha dalka iyo dibaddaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanan idin leeyahay ciid mubaarak kulla caamin wa antum bikhayr marka hore aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadaha islaamka munaasabadda barakaysan ee ciidul fitriga awgeed waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naga aqbalo soonkii salaadii sadaqadii iyo dhammaan cibaadooyinkii aan gudannay bishii barakaysneed ee Ramadaan waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed kuwaas oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka
iyo badbaadinta shacabka iyaga oo weliba sooman. geesinimadooda iyo nafurnimadooda waxay udub dhaxaad u yihiin nabadda xasiloonida aan maanta ku naaloonayno. ciidulfitriga waa munaasabad farxad iyo isu naxariisasho, iscafin iyo isu duubni u ah bulshada muslimiinta ah. waa maalin aynu ku xasuusanno qiimaha walaaltinimada iyo iscaawinta. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan midnimada, wadajirka, iscaawinta iyo is-ixtiraamka si aan u dhisno dal nabdoon oo barwaaqo ah. walaalayaal, diinteenna suubane waxayna baraysaa in maalmahan barakaysan aynaan iloobin dadka danyarta ah, kuwa aan awoodin in ay helaan farxadda iyo raaxada ay qoysas badan wadaagayaan. sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, hay-adaha samafalka inay isu kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadka tabaalaysan, loona hubiyo in qof walba uu dareemo farxadda ciidda. sidoo kale waxaa muhiim ah in aynu si gaar ah u xasuusanno caruurta agoonta ah iyo dadka nugul ee waayey daryeelkii ay u baahnaayeen. caruurtaasi waxay u baahan yihiin jacayl, daryeel, garab istaag. waana waajib ina saaran dhammaanteen in aynu ka shaqayno sidii aan uga farxin lahayn maalmahan ciidda ah, uguna abuuri lahayn rajo iyo kalsooni mustaqbalkooda ah. ciiddan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay dalka ka jirto abaar aad u daran oo saameysay dadka iyo dunyadaba. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay wadaa dadaallo ballaaran oo loogu gurmanayo bulshadeenna ay abaartu hayso. shacabkana meel walba oo ay joogaan waxaan ku boorinaynaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka walaalahooda tabaalaysan. sidoo kale colaadaha ka aloosan bariga dhexe ayaa iyaguna uga sii daray xaaladda, saameynna ku yeeshay ascaarta badeecooyinka muhiimka u ah nolosha bulshadeenna. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in dagaaladaasi si deg deg ah loo joojiyo, khilaafkana lagu xalliyo ama lagu dhammaystiro wada hadal si looga baaqsado masiibooyin ay adag tahay in laga soo qabto mustaqbalka dhow. annagoo garwaaqsan duruufaha ka soo cusboonaaday suuqyada caalamiga ah iyo saameynta ay ku yeesheen qiimaha maciishadda, waxaan si gaar ah ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay muujiyaan mas-uuliyad qaran iyo damqasho bulsho, hoosna u dhigaan qiimaha badeecadaha daruuriga ah intii suurtagal ah, gaar ahaanna maalmahan ciidda ah, si ay u fududaato nolosha shacabka danyarta ah loona wadaago farxadda ciidda. si hawshaas ay u noqoto mid taabagal ah, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya waxay magacaabaysaa guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta, ganacsiga iyo warshadaha, rugta ganacsiga, xeer ilaalinta guud iyo hanti dhowraha guud. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, sanadihii u dambeeyey waxaa dalka ka socday dadaallo xooggan oo lagu xoojinayo amniga, dib u dhiska dowladnimada iyo horumarinta dhaqaalaha. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa ka go'an inay sii wado dadaaladaas si loo xaqiijiyo mustaqbal wanaagsan oo ay helaan jiilasha soo koraya. sidoo kale waxaan baaq nabadeed iyo cafis 90 maalmood ah u fidinayaa dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka tirsan ururada Al-Shabaab iyo Daacish. waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo noqdaan wadada khaldan ee ay ku habaabeen, una soo laabtaan bulshada Soomaaliyeed ee ay ka mid yihiin. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay mar walba diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhallinyaradaas, una abuurto mustaqbal sharaf leh oo ay kaga qayb qaataan dhismaha dalkooda. sidaas darteed waxaan hay-adaha amniga iyo garsoorka faraya in ay soo dhammaystiraan habraaca fulinta cafiskan. sidoo kale maanta oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta, hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha
dalka loogana wada tashado arrimaha masiiriga ah ee ummadda soomaaliyeed. muddo sanad ah oo ka soo wareegtay xilligii goglahaas waxaa la qabtay goglo wadahadal oo midho dhal ah, kuwaas oo bulshada soomaaliyeed markhaati ka tahay doorka hogaamineed ee madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hormuudka ka ahayd. isu soo dhowaanshaha, isu tanasulka iyo ku xalinta khilaafaadka hab nabadeed ayaa aasaas isaldhig u ahaa goglahaas iyo wadahadaladaas. waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in goglahaasi ay weli furan yihiin, wadahadalkuna uu yahay jidka keliya ee lagu gaari karo xal waara iyo dowladnimo dhammaystiran. walaalayaal, ugu dambeyntii waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena siiyo nabad waarta, barwaaqo iyo horumar. waxaan rajaynayaa in munaasabadan ciidulfitriga ay noqoto mid farxad, jacayl iyo rajo cusub u horseeda dhammaan shacabka soomaaliyeed. walaalayaal, waxaan idin lehay ciidul mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed. kullu caamin wa antum bikhayr.